maamulka jaaliyadaha Somaliland ee dalka Faransiiska iyo guud ahaanba shacabka reer Somaliland ee dalkaasi ku dhaqan ayaa soo dhaweeyay safarkii taariikhiga ahaa ee madaxweynaha Jamhuuriyadda Somaliland ku maray guud ahaanba gobolada dalka. safarkaas oo qaatay 21 caanamaal ayay si wada jir ah u taageereen dadweynaha reer Somaliland ee ku dhaqan dalka Faransiiska iyagoo taageerayana waxa hadaladoodii kamid ahaa sida tan. بسم الله الرحمن الرحيم مقعيق عبد القادر موسى محمد هوري هرام بوحنوه محد علينا شغالها يوجد هم بمدحضة التيفيقة قرنك جمهورية سوماليلاند كل وادكم بهالسنتين فرصة هل كانت سيسان رأي أورنتها كصابسن سعودالكي مدحويني أحمد محمود سيرايو وقوب حي إنه صاين داية تذكر يهوله إلا ما قاب حي سعودالكي بنانك يبريبورت رأيي هدي عن كعبرو أنا جا قدوميها جالية سومالي لاندر قبل كان فوندي دالك فرانسيسكا وحيلتها حي كل وآد بنسولوينيا سببتها إنه حكومة قرون كحدنا طي مالون شوكتو ومضوا حي وباحن تحي وحي قبان لسوار كوايا كل مسؤولية درت المامسة وحي مرخاي موجين أساس عدالك مدحوينو السعودي أو دقاقي إنه يحي مد آد وناكسن وآد في عن أو طابنا يا تذكي وصاء ورصنا يا سول دكتا أدو دري مياشي شنطة أورتي مقالكي أرقي سيد نبع أي أصوات لندمين يا باهي در رمطة هاي جرتا تحسي مرخا وحي كينيسا أي تصيصا إن حكومة تاي حكومة دونيسا دواني أكتين كل دولة عردنين ونحي اسكوضا بلوا لكن مركا الله بربر لقد ذلك حكومة ما تجرتا أنا شخصيا وحن أمسني وين إنو يعي سببتها أن تاس أولي وحويا كل حكومة بدن باكر متبلة بين بيصور لكتي لكن توحن واقعنا سيدات بدن نيجو رويين إن تاي حكومة دي هرمارك هذا الصعدال كانوا قفك بلا آدم تدخل كردوين والنيجاتيف بوزيتيف ومتبدل عبوك يجي أنا وحن إيجي أن سكارو إيجي وحياله ومركب مدحوين مشوا قارب السميني بدنا دقة حر الله دقي أو ما يسترمي أيفري مدعسبنا ودقي ومركز ست توصل الله إيجو تذكر قاركود حيورنا يعني الدولة دي حكومة دقة حانون بعد اكتمالات سوالف قطران يا وبين بنا مسني waayo inta awooddeena marka la eegayo ulama jeedaan wax xisbi kama midihi midna kuma jiro dadka qaar kood inay yiraahdaan Cabdiqaadir Muusawdi xafladii kulmiye waanigu kugu arkin si kadiisuun bay dhalinyaradu igu yeerana waa qarankeeni iyo kulli waxeeni laakiin aanu gudoomiyaha jaaliyada oo arrimaha bulshada aad u danaya marka waxaan arkayay meel kasta ay xukuumaddu dhagax dhigtaba kii horena waa la furayay kana waa la dhigay mid cusub sida awgeed aad iyo aad baan madaxweynaha iyo xukuumaddiisa ugu hambalyeynaya anigoo ka muwaadin ahaan ka gudoomiyaha jaaliyada ee halkan yare aanu ku noolnahay oo de arimahaasun aanu diyaar u nahay inaan dalkayga wax u qabanno shakhsiyan 100% waxaan idinku mahad celinayaa arrinkaas laakiin ay mowqifkayga wasaas aadna wada mahadsantihiin. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مقعيق ومن علي مرسل waxaan deganahay dalka Faransiiska halkan waxaan ka salaamayaa marka ugu horeysa guud ahaan ummadda reer Somaliland meel kasta caalamka joogan marka labaad waxaan doonayaa halkan inaan aan ka hambaliyeeyo madaxweynaha Somaliland iyo wafdidii uu hogaaminayay socdaalka dheer ku maray gobolada dalka intooda badan ama guud ahaanba socdaalkii loogu magac daray buur iyo banaan aad iyo aad baan madaxweynaha ugu hambaliyeynayna waana guul taariikhiya ومحيدي وحويان السعودال كوجو الرئي مدحوينين تي جمهورية الصوماليلاند أي شرتي مددي أي شرتي ومدحوينين وجو الرئي محمود سيناي ومدحوينين وجو الرئي السعودال نوعا وكلا كل ما يودن كأوجو بحة إلى شيء ده هو ودن محيدي حدود دي سكو جارة آدي آدبان وجو حملين نوانا جول تاريخية مدحوينها محيدي آدي آدبان وسلام النايا دمان شعب كرير الصوماليلاند. بسم الله الرحمن الرحيم مقعيق وبسرا أحمد حسن وحن دقنا هاي دالك فرانسيسكا وحن آدي آدولا فرحسنا هاي صعد كي وتجي السفر كي ديرا وتجي مدحوينه محمد أحمد محمود سيلايو
waxaan ku jiida hore ee ciidamadu degan joogaan uu tagay waa wax aad iyo aad aan ugu faraxsanahay raygayga iyo maaragtay aqligaygana kuma soo ururin karo kuma soo koobi karo waayo intii aan aqliyeystay maan arag madaxweyne cagtiisa inta ku socdo aan diyaarad raacin aan tareen raacin aan dayuurad raacin aan gaari inta ku tagay kaga soo noqday alxamdulillaah rabbil caalamiin waa wax aad iyo aad ilaahay loogu mahad celiyo waxa ku farxaya oo ku dhiiranaya oo ku seexanaya shacabka waxa ku seexanaya oo ku dhiiranaya ciidamka aynu ku hurudno ee faranta jooga marka alxamdulillaah rabbil caalamiin wixii ka indhala baa ka indhala wixii indhahoodu soo jeedaana way soo jeedaan waxaanu leenahay madaxweyne hay weligaa hay bismillah magacaygu waa Cabdiqani Salabaan Cawid ahna gudoomiyaha jaaliyadda magaalada Nood dalkan Faransiiska fikrad ahaantayda ku aadanayd safarkii madaxweynaha Buuriya Bannaan waxaan u arkaa fikrad aad iyo aad loogu diirsaday oo aan haddaan jaaliyadda Nood nahay aan afkeedii ku hadlayo fikrad aad iyo aad loo soo dhaweeyay sababtoo ah uu madaxweynihii dalka oo dhan isaga madaxweyne ah waxaan arkaa madaxweynuhu waajibaadkiisii dastuuriga ah isagoo gudanaya oo dalkiisa iyo dadkiisa xaaladday qabaan soo ogaanaya oo xaaladdu la soo darsaya sidaas ay tahay waxaan u arkaa talaabo dhanka horumarka iyo dhanka wanaagsan loo qaaday waana ku hambalyeynaya madaxweynaha bismillaahi raxmaani raxiim magacaygu waa Xamse Cabdi Ibraahin waxaan deganahay magaalada Onshay ee dalka Faransiiska waxaan jecelahay inaan kelmad ka idhaahdo safarkii madaxweynaha ee Buuriya Bannaan kaasi oo muddo dheer oo 2 toddobaad gaadhaysa uu madaxweynuhu ku marayay dhammaan qaybaha dalka gobolada iyo degmooyinka runtii safarkaasi wuxuu ahaa safar taariikhi ah laba ujeedo ama laba macne oo waaweyn ayuu daarnaa toore waxay ahayd madaxweynaha Soomaaliland oo xisaabta mucaaradku ay ka deerin jireen caafimaadkiisa inuu notusay oo inoo bayaamiyay inuu madaxweynuhu caafimaad qabo jidh ahaan iyo maskax ahaanba inuu safri karo inuu talin karo inuu hadli karo taasi waa mid waxa kale oo safarkan u daarnaa oo inoo tusay oo bayaaminayay nabadda iyo xasiloonida ka jirta dalkeena Soomaaliland labada fariimood oo runtii aad waaweyn ayuu safarka madaxweynuhu baahinayay ama dulucdiisu ahayd waxaan runtii ku bogaadinayaa madaxweynaha waxaan ku taageersanahay oo aan ku hambalyeeynaa inuu dadkiisa iyo dalkiisa xaaladda dhaqan dhaqaale caafimaad waxbarasho inuu guri u tago oo magaalo u tago oo uu soo ogaado الرحمن الرحيم anigoo ah Sidiq Cabdi Aadan oo ku nool magaalada Paris waxaan halkan ku soo dhaweynayaa ra'yigii ahaa socodkii madaxweynaha uu ku tagay Lamaaya Gambadhay Lamaaya Baki haddaan nahay anagu gaar ahaan bulshada ku dhaqan gobolka Sool waan soo dhaweynaa waxqabadka madaxweynaha isagoo oo noo dhagax dhigay magaalada Gambadha taa saldhigii ciidanka booliiska caafimaadkii degmada Xudni inta in lagu ka fuliyay degmada taleexinta in lagu ka fuliyay laascaanood gaar ahaan anigu aad iyo aad baan u soo dhaweynaa waxqabadka uu noo qabtay madaxweynaha Soomaaliland Axmed Siilaayo gobolka Sool haddaan nahay dadweynaha ka soo jeeda gobolka Sool ee ku dhaqan qaaradan Yurub aad iyo aad baan u soo dhaweynaa boqolkiiba waxaan taageersanahay dawladdan kulmiye waxqabadkeedu oo dhameystiran ee noo qabatay baan taageersanahay waad aragtay laascaanood caafimaad meel hin intii Puntland haysatay waad arkay intii Daahriyaal haystay caafimaadkeedu oo kay moohan Axmed Siilaayo markuu qabsaday iyo wasiirka caafimaadka xigla toosiyay waad arkay intuu waxqabad uu noo qabtay inta caafimaado inta uu wax nooga jaray biyihii waad arkay inuu biyihii la gelinayo aad iyo aad baan u taageer جمال عبد إبراهيم تلفزيون كغرق جمهورية الصوماليلان باريس